Ma isweydiisay mar walba sababta qaar ka mid ah muuqaalada YouTube-ka yaala ay u helaan kumanaan daawadayaal ah halka kuwa kale ay u heli waayaan xitaa haddii uu yahay content-ka ay soo gudbinayaan mid fiican? Jawaabtu ama sababtu waa thumbnail-ka. Maanta waxaan idin wadaagayaa mashruuc aan si qalbi furan u qabtay. Waxaan thumbnail bilaash ah u sameeyay Cabdixakiin oo ka mid ah hal-abuurayaasha ku soo gudbiya content-kiisa YouTube-ka. Waa sheeko xiiso leh, fursad shaqo iyo hal-abuur isku sidkan. Markii aan arkay qaabka uu Cabdixakiin content-kiisa u soo bandhigayo, isla markiiba maskaxdayda waxaa ku soo booday fikir ah inaan u sameeyo thumbnail bilaash ah. Waxaan doortay inaan isku daro midabo muuqda, qoraal cad oo shaqabanayso, iyo composition ay isla jaanqaadayaan fariinta muuqaalka uu sameeyay. Thumbnail-ka aan u sameeyay waxaad ka arki doontaa isku dheelitirnaan u dhaxaysa muuqaal, dareen iyo casri. Waxaan si qoto dheer u eegay waxa uu u baahan yahay daawaduhu si uu u gujiyo muuqaalka. Ma jeclaan lahayd inaad la aragto habkan u sameeyay thumbnail-ka? Haa, waan ku ogahay waad jeclaan lahayd. Han ku tuso sidaan u sameeyay. Ay la dhamayso dhamaadka lisaanka. Inkastoo aan jeclaan lahayn daawade inaan helno meel aan ugu dirno thumbnail-kan bilaashka ah si aan uga codsano wada shaqayn dhanka thumbnail-iska ah. Nasiib xumo waan heli weynay. Waxaanan rajaynaynaa inaan helno ama u arko muuqaalkan aan ka soo sameeyay thumbnail-kan. Haddii aad tahay content creator u baahan thumbnail soo jiidasho leh, waa waqtigii aad la shaqayn lahayd qof fahamsan oo garanaya thumbnail-ka iyo fikirka uu xambaarsan yahay muuqaalkaagu, sida la isku qabasiin lahaa ama composition lagu sameyn lahaa. Haddii aad ka hesho muuqaalada aan halkan ku soo gudbiyo, subscribe dheh. Haddii aad ka heshayna like dheh. Wixii fikirkaaga ahna noogu reeb commentiga. Intaan ku kulmi doono thumbnailis ama muuqaalo noocan oo kala, waxaan idinkaga tagayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.